qarnigan aynu ku guda jirno dhacdooyinkii dhacay waxaa ka mid ahaa Mr. Olaf iyo xaaskiisa oo u dhashay dalkaasi Canada arooskoodu ka dhacay isla dalkaasi Canada xafladooda aroos kadib waxay soo wada qaateen nolol farxad iyo badhaadho leh muddo kadib Olaf iyo xaaskiisa waxay booqdeen dhakhtar ku yaala isla dalkaasi Canada kadibna waxa lagu wargeliyay inay dhawaan noqon doonaan hooyo iyo aabo bilihii hore uurkoodu waxa uu la socday si caadi ah aan lahayn wax dhibaato waxayna u diyaar garoobeen sida ay u soo dhaweyn lahaayeen ilmahooda curad iyagoo sawiranayay dalxiiska iyo kalluumaysiga sida wadajirka ay u sameyn doonaan marka uu dhasho ilmahooda curad maalmo kooban ka hor dhalashada ilmahooda curad waxay sheegeen dhakhaatiirta gacanta ku haysa ee la socota xaaladda wiilkooda caloosha ku jira arrin argagax leh arrintan oo ah inaanu sii noolaan karin wiilkoodu maadaama ay maskaxdiisu u korin sida caadiga ah maskaxdiisuna waxay ka yar tahay 2% maskaxaha carruurta la midka ah ee ku jira uurka dhakhaatiirtu waxa ay sheegeen haddii uu nolol ku dhasho aanu noolaan karin nolosha caadiga sidoo kalena noqon doono mid caqligiisu aad u yar yahay aad bay u murugoodeen Mr. Olaf iyo xaaskiisu wararkan dhiilada leh ee uu sheegay dhakhaatiirta gacanta ku haysa la socodka xaaladda wiilkooda caloosha ku jira midba midka kale ayuu qalbiga u qaboojiyay si ay uga gudbaan xaaladan adag ee soo fosaartay dhakhaatiirtii waxa ay kula taliyeen Mr. Olaf iyo xaaskiisa inay ka takhalusaan oo ay dinaan ilmahooda caloosha ku jira maadaama aanu si caadi ah u noolaan karin marka uu dhasho balse waxay ku gacan saydheen soo jeedintii dhakhaatiirta iyagoo isku qanciyay in wiilkoodu xaq u leeyahay inuu yimaado caalamka kula noolaado nolol caadi ah waxa dhashay wiilkii la wada sugayay iyadoo ay ka muuqatay calaamadihii ay saadaaliyeen dhakhaatiirtu sida lafdhabartoo qalloocda iyo miskaxda oo aad u yar waxaana loogu yeedhay khubarada caafimaadka si ay u baadhaan xaaladda wiilkan yar ee mucjisada ku riiday dhakhaatiirtii la socotay xaaladiisa muddadii uu ku jiray uurka waxay soo saareen natiijada khubarada caafimaadka ee loo xil saaray arrinkani iyagoo sheegay in aanu wiilkan yari sidaasi ku sii noolaan karin haddiiba mucjisada dhacdo uu noolaado aanu noolaan karin nolosha ay ku nool yihiin carruurta dhigiisa 3 sano markii uu jiray waxa lagu sameeyay qalin lagu toosinayo lafdhabarta sidoo kalena lagaga jarayo cadweyn oo madaxa kaga yaala qalinkan kadib waxa uu galay wiilkii yaraa nolol caadi ah waxaana loo bixiyay wiilkii mucjisada Mr. Ignois oo ahaa dhakhtar ku takhasusay qalliinka neerfaha isla markaana dhakhtarkii gacanta ku hayay wiilkan yar ahaa ayaa waxa uu sheegay inay arrintani tahay arrin ku cusub cilmiga caafimaadka adduunka wiilkii yar ee mucjisada waxa uu gaadhay 5 sano isagoo ku hamiyay inuu noqdo damdamiska bakhtiya dabka waxa uu mar kale dhakhtarku u diyaar gareeyay inuu lagu sameeyo qalliin dhanka miskaha si uu uga suurto gasho inuu marun cagihiisa ku socdo oo ka raysto baaskiilka uu saaran yahay arrintani waxay noqotay mucjisada caafimaadoo kaga yaabsay khubarada caafimaadka adduunka sababtoo ah wiil aanay dhacayn oo dhashay inuu caadi u noolaado ayaa noqday mid caadi u noolaada oo nolosha qayb ka qaata ugu tayada fiican Hargeysa Sud House